السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو بودكاست عصوب أنا قد مقعدرني قرشها نلشا برنامج كينا عصوب أنا مقعدرني قرشها نلشا وبرنامج إنفي عنا كفكرني أنا قلت لك اللي داد بدن إن أي روح ذو كل سان وقفك بني آدم كي هبكو أنولانيو أما أدقميو أما قرشها نلهانيد أنوليهاي وقعد لها وهو قناعسيهاي miduu isagu maamulkeeda iyo nidaamkeeda u leeyahay. runtii waa dhibaato aad u weyn haddii aadan maamulkeeda lahayn nolol adigu aad maamusho iyo waxa weeye qorshe nololeed adigu aad leedahay mar kasta aad ugu raadinayso qof aad kaga dayato ama meel walba ay kula xun tahay ama qof walba aad la kulantaa uu kula xun yahay. bal u fiirso, dad badan ayaa aaminsan markay isla hadlayaan waxay aaminsan yihiin waa maxay sababta uu hebel iiga fiican yahay. adigu maadan noqon karin qof hebelka aad sheegtay ka fiican. maxaad ugu qanacsanaan lahayd adigu naftaada inaad maamusho? waayo qof walba oo dadku ay jecel yihiin waa qof isagu noloshiisii maamulay, xakameeyey, u yeelay xeer iyo qodobo ay ku dhaqanto. su'aal baan is hordhigaynaa, su'aal gaaban ayaynu is hordhigaynaa. maxay tahay sababta hebelka horumare aad uga xuntahay? suma fiicna hebel horumare haddaad aragto inaad tiraahdo thank you, hore u soco. adigu ictiqaad noloshaada adigu inaad leedahay, maamulka qorshaha noloshaadan adigu inaad leedahay, maamulan karto meeshii aad rabtana aad u jeedin karto. walaalka haddii uu kaa fiican yahayna waxaa fiican inaad ku dayashada leedahay. waayo rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa looga dayan jiray xilliga asxaabihii dhaqanka iyo diinta iyo labiska waa looga dayan jiray. marka in la kala fiicnaado waxayba ka mid tahay sunnayaasha nolosha. sida dadka qaar ay lacag u leeyihiin qaarna aysan lacag u lahayn, hanti u lahayn, oo ay faqiir u yihiin, ayayba sunnaha nolosha ka mid tahay in la kala fiicnaado. qofba qofka ka fiican inuu hoggaan u noqdana dee waa waxa adduunku dhisan yahay. qofba qofka uu ka fiican yahay inuu hoggaan u noqdo. adiga haddaad xun tahay, soomaalida waxay tiraahdaa nin hadduu waalan yahay walaalkiisa u miyir qaba. adigu haddaad u xun tahay waxaa jira walaal ehel kula ah ama asxaab kula ah oo wanaagsan oo markaad adiga khalad samayso qabashadaada leh. hebelkaas wuu kaa fiican yahay marka, waayo waa ninkaa khaladka kaa qabtay oo kuu gargaarayo oo inaad khaldan tahay ku tusay. taasi marka waxay la micno tahay qofkaasi haddii uu fiicnaado dadkii jeclaadeen oo la yidhahdo ma hebel nin caadiya maaha ama qof caadiya maaha ama gabar caadiya maaha, waa ilmu xalaal, waa nin qof gob ah, waa qof akhlaaq leh, waa qof afkiisa laga nabad galo, waa qof maartay intaasoo ammaanay ay dadku u jeedinayaan. sababta marka qofka wanaagsan adigu aad ku noqon karto oo aad u diidan tahay, bal su-aashaan is hordhig. adiga qof wanaagsan baa tahay, laakiin noloshaada adiga ayaa maamuli waayey, u samayn waayey xeer iyo qodobo iyo nidaam ay u socoto. naftaadii baa adiga ku maamulatay. way kula sheekaysto, waxay ku tiri hebel waa uu kaa fiican yahay. waa inaad xasadaa, waa inaad dhibaataysaa, waa inaad daba dhigataa. adiga naftaadii ayaa ku maamulatay oo meel allaala meeshii rabta kuu jeedisay. laakiin ninkaas kaa fiicani naftiisa isagaa maamulay. wuxuu baray dadka inay ixtiraamto, wuxuu baray qofka maaragtay fiicanoo socda inay dhiirigeliso oo la sheekaysto oo saaxiib la noqdo. wuxuu baray midka ka hooseeya oo dhaqaale ahaan ka liita oo magaranaysaa xaalad ahaan ka liita inuu ka warhayo, inuu qaraabada xiriiriyo ayay bartay. adiga sabab kuu diiday ma jirto inaad saa isu tababarto, naftaadii asaa u tababarto. hebelkaas kaa fiicani meelo wanaagsan bay dadku ku arkeen. waxay ku arkeen masaajidka, waxay ku arkeen isagoo magaranaysa qur-aanka akhrinaya, waxay ku arkeen isagoo cibaadaysanaya. fiicnaantiisa la iskama sheegin, micnaa ku yimid. wuu dhisay naftiisa, noloshiisa ayuu dhisay. qof walba uu la kulmana si wanaagsan ayuu la dhaqmaa. qaarkood iyagoo caynaya oo aflagaadaynaya ayuu yidhaahdaa haas asmi ah waad mahadsantihiin. wuu ka sii socdaa, lama diriro oo ma caayo oo hawl kale uma geysto. sababta hebel fiicnaanta iyo ammaanta iyo waxaas u helay waa arrinkaas. waa qof naftiisii hogaamiyey, qorshihiisa noloshana noqday qofka adag oo meel u wada. marka aan saas leeyahay oo intaas oon soo marayo, ma aha waxaan la hadlaya nin, waa anybody, qof kasta, dumar iyo rag weeyaan. gabadha guriga ay joogto oo marwada ka tahay, gabadha dariskeedaa ka fiican. hadday tahay nolosha guriga, habdhaqanka guriga, waa sida de waad yaabaysaa baan ku leeyahay. beri dhexdaas waxa dhacday goob ganacsi anaa ka shaqaynayaba waxa dhacday meesha ganacsiga waxaa ku dhex taalay meel gaadhin ah oo dee ciyaalada iyo waxaas lagu ciyaarsiiyo, dadkaas lagu ciyaarsiiyo. marka reer xaas ah ayaa soo booqday meeshii ciyaalkoodii. wuxuu wata laba reer ah oo hal nin oo maartay laba haween oo wada qabo ciyaalkoodii wata.
marka labada haweenahi ciyaalka ay wataan midna ciyaalkeeda labadaba gabdhaha ku jira dabcan ciyaalkooda mid waxa weeye ilmaheeda gabdhaheedu way labisan yihiin way maxaa la yiraahdaa way xijaaban yihiin kaalay iska aragdhasi waa asturan yihiin midna timaha intay u soo wada qaawiso u soo dabtay ayay saqlaynayaan marka isagii iska dhex socdaa ninkaasi wuu iska dhex socdaa markaasaa waxaan iska weydiiyey walaalayaalow ninkaas labada haweena midna ciyaalkeedii iyo maartay u soo asturtay markay suuqa u soo kaxaynaysay midna iyagoo qaaqaawan madaxa qaawanay halkaa didayaan walaalayaalow labadaas haweena ninkaas teebuu jecel yahay kalo waxaan dareemayaa anuu markaan isaga fiiriyo inuu u liicsan yahay haweenaydaas ilmaheeda asturtay ayaan dareemayaa dabcan waa labadiisa xaas inuu kala jeclado ma ahan laakiin habdhaqankay la imaadaan baa wuxuu abuurayaa labada xaas inay kala fiicnaadaan so marka adiga waxa xumaanta kuu keenaya waa waxa adiga aad xakamayn lahayd wey haddaad xakamihii sii dayso xaar baad walaaqanaysaa runtii marka sidaas ayay noloshu kala tahay hebel baa hebel ka fiican hebel baa iga fiican hebel muxuu iiga fiican yahay waxa keenaya waa intaas wey waa qof noloshiisii iyo qorshihiisii nololeed xakameeyey oo meel ku ogaaday iyo qof noloshiisii iyo qaabka u socon lahaa xarigii u gooyey wey xarigii goostay dhihi jiray marka waa sidaas weeyaan barnaamijkan aan ugu magacdarnay qorshaha nolosha podcast aan ugu magacdarnay qorshaha nolosha insha Allah waxaan rajeynayaa inuu xalqado badan sii yeesho runtii barnaamij badanaa ku dhex jira oo aan ugu talagalay inay dadku faa'iideystaan qaybo waxbarasho uu leeyahay oo qofku wax isku bari lahaa isagoo aan macallin hor istaagin oo waqti dhumin wax isku bari lahaa noocay doontaba ha noqotee waxbarashadu ayaa ku jira sidoo kale waxaa ku jira sidoo qofku qorshayaal u samaysan lahaa oo qorshihiisa maalinlaha u degsan lahaa baa ku jira waxaa ku jira qorshaha maamulka qoyska ku jira insha Allah dad badan way ka qayb gali doonaan waxaan rajeynayaa inaad qayb ka noqoto insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.